wadsalaamantiin asxaabta kusoo dhawaada barnaamijkeena target waanu ku falanqeyno kulamada ugu waaweyn ee la ciyaaray toddobaadka waxaan muuqaalkan ku eegi doonaa kulamada ugu muhiimsan ee la ciyaaray caawa koobka Champions League sidoo kulamadii kooxda Inter Milan, Tottenham, Liverpool, Atletico Madrid iyo kulankii ugu muhiimsan ee ahaa kulankii caawa ugu adkaa kaasoo dhexmaray kooxaha Bayern iyo kooxda Barcelona. haddaynu ku horeyno ama aynu ugu horeyntii dulmarno kulamadii ugu horeeyay ama kooxihii ama kulamadii aan muhiimka ahayn, kooxda Inter Milan ayaa gaadhay guusheedii koobaad kadib markii ay 2-1 kaga badisay kooxda Victoria Blaze. sidoo kale kooxda Tottenham ayaa iyaguna laga badiyay kulankoodii labaad kadib markii ay kooxda awooday inay kulankii koobaad kooxda Marseille 2-1 kaga badiso. haddaba kooxda Tottenham ayaa kulanka kusoo gashay si fiican, balse kooxda Sporting Lisbon oo ahayd koox fiican ayaa badanka ahayd kulanka kooxdii fiicneed. intaa kadib kooxda Sporting Lisbon waxay awooday inay 2 gool dhaliso, labada gool oo yimaatay daqiiqadii 90 ama daqiiqadii 90 wixii ka dambeeyay oo waqtigii lagu daray ay kooxda Sporting Lisbon awooday inay 2 gool ka dhaliso kooxda Tottenham. dhinaca kale kooxda Bayer Leverkusen ayaa iyaguna awooday inay ka badiyaan kooxda Atletico Madrid oo kooxda Atletico Madrid iyaguna kadib markii ay kulankoodii koobaad daqiiqadii ugu dambeeyay ay ka badiyeen kooxda Porto ayaa hadda kulankan caawa waxay la ciyaartay kooxda Bayer Leverkusen waxaana lagaga badiyay 2-1 oo kooxda Bayer Leverkusen ayaa awooday iyaduna inay 10 daqiiqo ugu dambeeyay ay 2 gool ka dhaliso kooxda Atletico Madrid. sidoo kale kooxda Liverpool ayaa iyaguna soo laabatay ama daqiiqadii 89 dhalisay goolka labaad oo kooxda Liverpool kadib markii ciyaartoyga Mohamed Salah oo 20 daqiiqo ugu horeeyay goolka koowaad u dhaliyay ayay kooxda Ajax awooday inay soo laabato oo ciyaartoyga Mohamed Qudus ayaa dhaliyay gool aad u qurux badan. goolkii koowaad ee kooxda Liverpool kubad dheer oo ka timi Alisson kadib waxaa qabsaday ciyaartoyga Jota waxa uu u baasay Mohamed Salah. inta kadib Mohamed Salah kubadda waxa uu ku hubsaday shabaqa ama waxa uu dhaliyay goolkii koowaad oo Mohamed Salah wuxuu noqday ciyaartoygii kooxda Liverpool ugu badnaa ee taariikhda koobka Champions League goolal ku dhaliya ama goolal u dhaliya kooxda Liverpool marka lagu ciyaarayo garoonka Anfield. oo ciyaartoygii Mohamed Salah waxa uu dhaafay ama waxa uu jabiyay rikoodhkii hore u dhigay ciyaartoygii hore iyo halyeyga hore ee kooxda Liverpool khadka ugu ciyaari jiray Steven Gerrard kaasoo u dhaliyay kooxda Liverpool marka ay ciyaarso koobka Champions League garoonka Anfield markay ku ciyaarso gaar ahaan 14 gool. haddaba Mohamed Salah kadib markuu dhaliyay goolkii caawa waxa uu jabiyay rikoodhkaas oo waxa uu noqday ciyaartoygii kooxda Liverpool ugu badan ee goolal lagu dhaliyo koobka Champions League garoonkeeda Anfield. inta kadib kooxda Liverpool waxa sii jiray ama waxa soo baxday inay dhibka ugu badan ama dhibka ugu weyn ee kooxda Liverpool haystay inuu yahay daafaca oo kooxda Ajax mar walba ay soo gaadhisay daafaca kooxda Liverpool. oo haddaynu eegno goolkii koobaad ama goolkii ay dhalisay kooxda Ajax ciyaartoyda ama garabka midig ayay kasoo gashay ee daafaca midiga kooxda Liverpool oo ciyaartoygii Mohamed Qudus waxa uu ahaa ama ciyaartoy gadaal ayuu kasoo qaatay kubadda. inta kadib xataa isagoo aan wejigiisa ama si fiican u arkin goolaha ayaa u laaday kubadda oo ciyaartoyga Virgil van Dijk ayaa ahaa ciyaartoyga ugu dhawaa oo xataa haddii uu kusoo dhawaaqaaqi lahaa maaragtay waa uu ka daafacan lahaa ama kubadda waa ay ku dhici lahayd taasoo kubadda koornoo bixi lahayd balse ciyaartoyga Van Dijk ma uusan kusoo dhaqaaqin taasoo ogolaatay ciyaartoyga Mohamed Qudus inuu kubad gool qurux badan ka dhaliyo kooxda Liverpool. kadib qaybtii dambe kulanka waxaa soo galay ciyaartoyda Firmino sida Darwin Núñez oo kooxda Liverpool waxaa badnaaday weerarkeeda inkastoo ay yaraatay ama aanay aad u shaqaynayn barasharka ama cadaadiska ay sameynayso kooxda Liverpool oo kooxda Ajax ay u ogolaanaysay inay marar badan kooxda Ajax kubadda goolaheeda iyo khadka dhexeba sida ay doonto ugu maamulato oo kooxda Ajax kubadda badan ama baasas badan ay ku ciyaartay khadka dhexe. sidoo kale kooxda Ajax ay tartiibteeda garoonka ama goolaha ka soo saarisay kubadda oo intay daafaceeda ka soo kaxayso weerarka gaarsiinaysa mararka qaar. sidoo kale kooxda Ajax ay mararka qaar ku ciyaarsay kubadda dhaadheer oo ay ka keentay fursado badan. ugu dambeyntii kooxda Liverpool ayaa awooday inay guusha gaadho ama daqiiqadii ugu dambeeyay daqiiqadii 89 dhalisay goolka labaad oo ciyaartoyga Matip ayaa u dhaliyay kooxda Liverpool goolka labaad. sidaasna ayay ku gaadhay kooxda Liverpool guusheedii koobaad ee horyaalka Champions League kadib markii kulanka ugu horeeyay ay kooxda Napoli 4-1 kaga badisay. ugu dambeyntii haddaynu u nimaando kulanka ugu muhiimsanaa ee caawa la ciyaaray sidoo kale ah kulankii toddobaadkan ugu muhiimsanaa koobka Champions League kaas oo dhex maray kooxda Bayern iyo Barcelona oo kooxda Bayern ayaa ku badisay 2-1. haddaba inteenan eegin kooxda Bayern waxaynu wax yar ka eegi doonaa ama aynu wada eegi doonaa kooxda Barcelona qaab ciyaareedkii iyo sida ay u ciyaarisay iyo kulanka ay soo bandhigtay iyo wixii laga filanayay. kooxda Barcelona waxa ay kusoo gashay shaxda haddaynu eegno waxa shaxdii la filayay waxa iska bedelay inuu tababare Xavi kusoo bilaabay ciyaartoyga Marcos Alonso sidoo kale uu kusoo bilaabay Christensen oo ciyaartoyga Xavi kulanka ka hor ayaa la weydiiyay waxa uu sheegay in labadan ciyaartoy yihiin laba ciyaartoy oo khibrad u leh koobka Champions League sida darteed ay kulamadan yihiin kulamadii ay ciyaari lahaayeen.
kooxda Barcelona markii ay soo gashay kulanka 5 daqiiqo ee ugu horeeyay waxay isku dayday inay kubadda haysato sidoo kalena ay pressure samayso oo kooxda Barcelona markii ay kubadda haysatay 5 daqiiqo ugu horeeyay waxaynu arkaynay in kooxda Bayern sameynaysa pressure ama cadaadis taas oo aynu arkaynay inaanu ciyaartoyga Sergio Busquets ka qayb qaadan karin ama aanu ka qayb qaadanaynin markay kooxda Barcelona kubadda gadaal ka soo dhisayso oo labadii ciyaartoy ee kooxda Bayern iska garab ciyaariyay kuwaas oo kala ahaa Jamal Musiala iyo Thomas Müller oo labadoodu isku kala bedelay ciyaartoyga Sergio Busquets oo ilaa 30 daqiiqo ugu horeeyay ciyaartoyga Sergio si toos ah ugu qayb qaadanayn qaab ciyaareedka ama marka kooxda Barcelona kubadda gadaal ka soo dhisayso inta kadib kooxda Barcelona 10 daqiiqo ugu horeeyay waxay isku dayeen inay kubadda qabsadaan oo kubadda ayaga haystay taasoo ahayd inay xamaasadda iyo taageerayaasha iyo xamaasadda ay ku soo galayaan ciyaartoyda Bayern inay nuugaan oo ay dib u dhigaan ama ay dejiyaan arrinka waana ku guuleysatay kooxda Barcelona oo ay dejiyeen kadib kooxda Bayern dib ay u baxday ama gadaal ay u baxday oo waxay ku ciyaarisay kubadaha tooska ah oo kubadda markay qabato waxay ku ciyaarisay inay kubadda dheer tuurto sida ciyaartoyga Sané iyo Sadio Mane balse kooxda Barcelona oo ku ciyaarisay daafaca hore ayaa arrinka ka hortagtay oo ciyaartoyda Koundé, Araujo, Christensen iyo Marcos Alonso ugu yaraan 40 daqiiqo ugu horeeyay waa ay fiicnaayeen marka laga reebo ilaa 2 fursadood oo ciyaartoyga Sané ka timi oo kubadda uu baasay ciyaartoyga Sabitzer ee ka ciyaaray khadka dhexe kaasoo goolaha agmariyay iyo kubad kale oo isagu soo hormariyay ciyaartoyga Sané iyadoo waxa jirtay inuu ciyaartoyga Jamal Musiala oo isagu ka dhex shaqeysanay khadadka dhexe balse ay aad u yareyd qaybta hore kulanka oo 15 daqiiqo ugu horeeyay kulanka uu si fiican u ciyaaray balse ilaa dhamaadkii haafka hore inuu ciyaartoyga Jamal Musiala aanay ama ay ku adkaatay arrinkaas tababare Xavi kubadda marka kooxda Barcelona ay soo dhisayso ee laga qaatay ama laga xidhay ciyaartoydii ama ciyaartoyga ugu muhiimsan ee ahaa Sergio Busquets waxa uu sameeyay tababare Xavi in ciyaartoyda Gavi iyo Pedri ay ka soo ag dhawaadaan oo labada ciyaartoy midkood uu soo dhawaado kaas oo kubadda qabsanayay kadibna marka uu kaxaynayay khadka dhexe iyo weerarka ama khadka dhexe iyo daafaca kooxda Bayern oo waxaynu arkaynay in ciyaartoyga Pedri marar badan imaaday oo goolaha agtiisa uu kubadda kaxeeyay sidoo kale mararka qaar uu laba ciyaartoy ilaa 3 ciyaartoy kala dhex baxay haddaba kooxda Barcelona markii ay inta kadib u ciyaartay waxay awooday inay samayso fursado badan oo ciyaartoyga Lewandowski ayaa ilaa 2 fursadood helay kubad madaxeed iyo kubad kale oo si fiican u kantaroshay balse uu goolaha dul mariyay sidoo kale ciyaartoyga Pedri ayaa isaguna helay ama waxa uu sameeyay fursad aad u khatar badan balse waxa ka badbaadiyay gooladaha kooxda Bayern oo ahaa Neuer kaas oo ahaa ciyaartoyga ama xidiga ugu fiicnaa kulanka qaybta hore ee kulanka haddaba kooxda Barcelona sidoo kale ama afkaarihii uu ku ciyaarayay Xavi waxa kamid ahayd inuu ciyaartoyga Dembele uu ka ciyaarayay garabka bidix ee weerarka kooxda Barcelona halka uu ciyaartoyga Rafinha uu ka ciyaarayay garabka midig ee kooxda Barcelona weerarkeeda haddaba Dembele intii ugu horeysay ka hor inta aanu soo galin ciyaartoyga Nusayr Masraoui waxa uu awooday inuu ka adkaado ama inuu garabka soo jabsado oo ciyaartoyga Bafard ayaa ka ciyaaray garabkaas balse halka dhinaca kale uu ciyaartoyga Alphonso Davies uu ka adkaaday ama uu ka daafacday ciyaartoyga Rafinha hatta mararka qaar uu ciyaartoyga Alphonso uu fursado badan abuuray 2 ilaa 3 fursadood abuuray kadib markii uu kubadda ka soo qaatay ciyaartoyga Rafinha taas oo ogolaatay ciyaartoyga Alphonso inuu gaadho gudaha weerarka ama daafaca soo galo 18 kooxda Barcelona oo kubadda badan baasay haddaba intaa kadib maxaa isbedelay tababare Xavi muxuu sameeyay tababare Xavi waxa uu sameeyay markii ay gaadhay daqiiqadu 30 waxa uu sameeyay switch ama waxa uu isku kala bedelay ciyaartoyga Rafinha iyo ciyaartoyga Dembele oo ciyaartoyga Dembele ayuu keenay garabka midig halka ciyaartoyga Rafinha geeyay garabka bidix sidoo kale waxa isku bedelay ciyaartoyga Araujo iyo ciyaartoyga Koundé balse wax iska bedelay ma jirin oo markii hore ciyaartoyga Dembele waxa uu ku fiicnaa garabka sidoo kale Alphonso halkan ayuu kaga adkaa ama waxa uu si fiican uga daafacay ciyaartoyga Rafinha balse waxa soo baxday in ciyaartoyga Dembele iyo ciyaartoyga Alphonso ay adkaatay inuu dhaafo inkastoo uu fursad abuuray balse uu ka daafacay ciyaartoyga Nusayr Masraoui oo kubad fiican u tuuray ciyaartoyga Lewandowski balse waxa xagga dambe kaga yimi oo kubad baadiyay Nusayr Masraoui haddaba kooxda Barcelona qaybta hore sidaas ay u ciyaartay halka ay kooxda Bayern qaybta hore iyagu ciyaarayay inay dib u soo degaan kadibna ay daafacdaan kubadda markay qabtaan ay kubad toos ah ciyaaraan oo ay u tuuraan ciyaartoyda garbaha ama ciyaartoyga khadka dhexe ee Jamal Musiala iyo Thomas Müller oo labadooduba khadka hoos soo degay ama gadaal u soo degay taas oo oggolaanaysa inuu ciyaartoyga Sadio Mane 18 galo ama uu ku xaroodo xerada ganaxa kooxda Barcelona haddaba kulanka maxaa iska bedelay qaybtii dambe ee kulanka kooxda Bayern maadaama aanay qaybta hore gool la kulmin sidoo kale ay kooxda Barcelona ka fursado badneed oo aanay fursadaha ka faa'iideysan waxay ku soo gashay kooxda Bayern inay xamaasad iyo cadaadis iyo pressure inay samayso oo isla 5 daqiiqo ugu horeeyay ee qaybtii dambe ee kulanka kooxda Bayern koornihii ugu horeeyay ay heshay sidoo kalena koornihii ugu horeeyay kooxda Bayern heshay kulanka ay ciyaartoyga Kimmich cross fiican ayuu soo qaaday
waxaana ka dhaliyay ciyaartooyga Lucas Hernandez oo u muuqday inaanay ciyaartoy daafacanayn. intaa kadib waxaa laga filayay kooxda Barcelona inay samayso falcelin aad u ballaaran oo ay fursado badan abuurto, balse kooxda Bayern ayaa iyaguna isku dayay inay kubadda qabsadaan oo 3 ilaa 4 daqiiqo ama ilaa 3-2 daqiiqo kubadda haystay. isla kubadda ay haysteen waxa ay kooxda Bayern kubad kale ka soo baadsay daafaca ciyaartooyga Aubameyang oo isagu mararka qaar ka qayb qaadanaya kubad soo dhisida oo kubadda uga dhex tuurayay ama masaaxada space-ka u dhaxeeya daafaca kooxda Barcelona iyo khadka dhexe uga tuurayay ciyaartooyga Thomas Muller iyo Jamal Musiala oo halka ka shaqaysanayay. ciyaartooyga Jamal Musiala ayaa qaybta dambe ama ilaa 30 daqiiqo ugu horeeyay qaybta dambe kulanka waxa uu awooday ama waxa uu helay space-yadii iyo masaaxadii iyo meelihii banaana ee u dhaxeeyay khadka dhexe ee kooxda Barcelona iyo daafaca kooxda Barcelona oo waxa ka yimaaday goolkii koobaad ee kooxda kadib markii kubad loo soo tuuray Sane kadib markii loo soo tuuray kubad Sane waxa uu dhiibay ciyaartooyga Musiala waxa uu la galay ama waxa Musiala iyo Sane oo wada socda ayaa israacay, balse Jamal Musiala kubad ayuu Ayer u tuuray kadibna Sane kubadii waa uu la galay oo Ayer ayuu uga taabtay goolwada Ter Stegen oo kooxda Bayern waxay sidaa ku awooday inay ku dhaliso goolkii labaad iyadoo 5 daqiiqo gudaheeda ay ku dhalisay oo labada gool waxa u dhaxeeyay 3 daqiiqo. haddaba kooxda Bayern inta kadib maxay samaysay? kooxda Bayern inta kadib waxay samaysatay inay kubadda qabsato oo ay gadaal u celiso, sidoo kale ay kubadda haysato gooda Neuer u celiso in badan oo ay ka nuugto ama kooxda Barcelona aanay u ogolaan inay kubadda markiiba qabsadaan oo ay fursado badan abuuraan. sidoo kale kooxda Bayern marka kubadda marwal oo laga haysto oo maadaama 2 gool lagu leeyahay hore ayay u soo baxayeen, taas oo ogolaanaysay kooxda Bayern inay horo ama inay kubadda dheer ciyaaraan ama ay kubadda tartiibtooda ciyaaraan maadaama aanay kooxda Barcelona nervous ama ay cadaadis iyo ay haysato arrimo kale. sidoo kale waxa uu sameeyay tababare Xavi bedelo oo waxa uu soo galiyay ciyaartooyga Ferran Torres halka uu soo baxay ciyaartooyga Rafinha marka laga yimaado qaybta hore kulanka qaybtii dambe waa ay yareed wax qabadkiisu. haddaba maxay ahayd fikirka uu soo galiyay ciyaartooyga Ferran Torres waxa uu soo galiyay maadaama ciyaartooyga Robert Lewandowski uu soo baxay oo khadka dhexe imanayay si uu kubadda u helo ama uu kubadda u qabsado. waxa jiray masaaxo ama space uu sameeyay ciyaartooyga Lewandowski marka uu ka soo baxay xirada ganaxa kooxda Bayern waxa soo raaciyay ciyaartooyga haddaba Xavi suu uga faa'iideysto space-kaas iyo masaaxadaas waxa uu soo galiyay ciyaartooyga Ferran Torres uu soo galin inuu ka ciyaaro garab, balse waxa uu soo galiyay ciyaartooygan inuu ka dhawaado ciyaartooyga Lewandowski oo waxa jiray inay kubadda badan isku baaseen, sidoo kale ay fursado badan ka abuureen. sidoo kale ciyaartooyga Badri ayaa isaguna fursad khatar ah helay kadib markii uu kubadda isku dhufsasho ama wantuul ciyaaray ciyaartooyga Lewandowski, balse waxa ay ku dhacday birta midig ee goolwada Neuer. sidaa darteed marka uu galo ciyaartooyga Ferran Torres gudaha waxa uu ogolaanay ciyaartooyga Marcos Alonso inuu booska u baneeyo oo uu soo baxo, taas oo aynu arkaynay ciyaartooyga Alonso inaanu qaybta hore soo baxayn balse qaybta dambe uu soo baxayay oo kubadda ama ilaa 3 kubadood karoosay. intaa kadib waxa uu soo galiyay sidoo kale Balde halka uu ciyaartooyga Christensen saaray oo uu soo galiyay ciyaartooyga Eric Garcia kaas oo ay ka muuqatay ciyaartooyga Araujo iyo Garcia inaan isla haysan oo ciyaartooy ama labadan daafacan ee Garcia iyo Araujo ayaa lagala dhex baxay ama kubaddii goolkii labaad ee uu Sane dhaliyay labadooda ayay ka dhex baxday. intaa kadib kooxda Bayern waxa ay kulanka maamushay ama kubadda ay haysatay halka kooxda Barcelona fursado badan abuurtay. ugu dambeyntii kooxda Bayern ayaa gaadhay guushii labaad kadib markii ay guushii koobaad ka soo gaadhay kooxda Inter Milan oo ay kaga badisay isla natiijadan oo 2-0 sidoo kale ciyaartooyga Sane gool dhaliyay halka kooxda Barcelona la soo gaarsiiyay gool daradii ugu horeysay xil ciyaareedkan oo kooxda Barcelona horyaalka lagama badin wax kulan ah. sidoo kale kulankii koobaad ee ciyaareen koobka Champions League lagama badin oo kooxda Victoria ay kaga badiyeen 5-1. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar subscribe na dheh channelka